halka dhimasho waxay sheegayeen xagga beesha ciise 10 qof iyo 12 dhaawac oo dirdhabiyo loo kala qaaday magaalada Aashaca iyo Jabuuti. Heemaal iyo deegaamo kale oo xuduudka u dhow ayaa maanta dagaal ku dhex maray beelaha walaalaha ah ee Gadabiirse iyo Ciise iyadoo falalka nabadgelyo darro ee ka soo cusboonaaday deegaamo ka tirsan gobolka Selel si weyn loogu eedeynayo dawladda Jabuuti oo doonaysa deegaankaasi inay si xoog ah ku qabsato. Haddaba si aynu faahfaahin dheeraad ah uga helno khasaaraha uu dagaalkani dhaliyay iyo sidii ay wax u dhaceen, waxa si toos ah khadka telefoonka ugu jira Cabdirasaaq oo isha ku hayay dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay. ugu horreyntiina waxaan weydiiyay sida ay wax u dhaceen. dagaalku wuxuu ka dhacay maanta magaalada Jili iyo magaalada Heemaal dagaalkaasi oo socday muddo badan ilaa saaka sidoo bilaabmay ilaa haddana dagaalku uu socdaa. Ciidamada ka soo duulay gobolka Shinile iyagoo dawladda Jabuuti oo dhinaca oo xulufaa ayaa soo galay magaalada Jili iyo magaalada Heemaal. marka ciidamada noocaas dadka soo duulay shacabka Jamhuuriyadda Somaliland waxa iska caabiyay qoladii deegaanada deegaanada Jili iyo Heemaal beelaha Gadabuursi. marka ciidamadii soo duulay xuduudaha soo duulay dib baa loogu celiyay fariisimadoodii iyo dhufaysadoodiina waxa gacanta ku dhigay ciidamada iska caabinta beelaha Gadabuursi Axmed Gure iyo Hadal Ambayr oo dib u riixay oo xuduudaha xaggooda u riixay. Cabdirasaaq, dagaalkani muxuu khasaare geystay saaka ka dhacay Heemaal iyo goobaha kale? khasaare u geystay khasaare badan baa jira oo geystay haday tahay xagga dhaqaale iyo haday tahay dadkii bulshadii deegaanka iyo mashaariicii ka jiray deegaanka iyo dadkii ku dhintay intaba way leeyihiin. dhimashadu waxay maraysaa iyada labada dhinacba dhinaca waxay maraysaa lisanadoo sheegay waliba ila xoogaale iyo odayaasha dhaqanka aan weydiinay halka dhimashadu waxay sheegayeen xagga beesha ciise 10 qof iyo 12 dhaawac oo dirdhabiyo loo kala qaaday magaalada Aashaca iyo Jabuuti. xagga beesha Gadabuurse oo ka dhintay 1 qof iyo 1 dhaawac iminka inta kalena tiradeeda aan sugaynay iyo tirakoobkeega wixii kale iyagana dhaawac oo la soo ururinayo iyaga laftirkooda lagu maqan yahay. waayahay dagaalkan maanta dhacay labada beelood walaalaha ka dhaxaya maxaabiis in lagu kala qabsaday ayaa igu maqaala maxaa ka jira arrinta? arrintaas maxaabiis oo lagu qabtay hadda oo la soo bandhigay ma jirto haba saacatee laakiin waxaan sugaynaa bal waxaan saacadaha soo socda bal inay labada dhinacba waxay hayaan caddayn buuxa ka keenaan. hadda laakiin waxaan aragnay oo meesha aan ku aragnay qoryo laga qaaday ciidamada beesha ciise soo duulay qoryahaas oo 6 ka kooban oo ay kaayeen ragii dagaalamayay laga furtay. laakiin waxaan eegaynaa labada dhinacba bariyaha marka saacadaha soo socda bal inay soo bandhigaan haday dhab tahay waxay kala haystaan taana ishaan ku haynaa. laakiin xagga beesha ciise iyagoo duulimaad ah iyo ka soo duuleen gobolka Shinile iyo dawladda Jabuuti. waayahay ciidamada Somaliland ayaa ku sugnaa soodimahaasi Jabuuti iyo dhinaca Itoobiya xagee ayay iyagu mareen? ciidamada Jamhuuriyadda Somaliland 25% bay amniga gacanta ku hayaan 25% waa meesha way banaantay. marka cidda buuxinaysa waa ciidamada madaniga ee iska caabinta beelaha Gadabuursi oo iyaguna ka seexday inay buuxiyaan 25% loogu talagalay percentage-ka inay buuxiyaan nabadgelyada oo ciidanka wixii ay qabtaana gacanta ka saaraan si maxkamad military loo saaro sharciga loo horgeeyo qalabka haystaan ciidanka lagu wareejo si sharciga loo waafajiyo oo la geeyo maxkamad military maadaama ay dambiilayaal ka soo duulay Jabuuti iyo gobolka Shinile. waayahay deegaanka Toqoshi isaga laftiisa xalay waxa ka dhacday arbushaad sidee ayay wax u dhaceen? dagaalku Yusuf xalay markii ay bilaabeen bacda 9kii barkii habeenimo ilaa 10kii habeenimo ayuu dagaal ka bilaabay magaalada Toqoshi oo u jirta magaalada Saylac ee caasimadda gobolka Selel 7 kiiloomitir u jirta xagga kale ee Lawyacadan u jirta 12 kiiloomitir. magaaladani waxay ku dhow yahay saddex xagalka Jabuuti iyo Somaliland iyo u dhaxaysa dawladda Itoobiya. marka halkay weerar ka soo qaadeen waa halkaas oo bannaan oo ciidamada Somaliland ay 75% inay buuxiyaan arrintiisa ay suurtagali weyday. marka dagaalkii xalay ka dhacay wax khasaare ah haba yaraatee ma geysanin laakiin odayaasha dhaqanku waxay dacwad u gudbiyeen ciidamada militariga ee fariisinkoodu yahay caasimadda gobolka Selel. waayahay ugu dambeyntii dagaalada tan dawladda Jabuuti ayaa si weyn loogu eedeynayaa iyo Itoobiya inay qayb ka yihiin arrimahaasi maxaa ka jira Cabdirasaaq? sidaan ognahay waan ognahay arrimaha ka jira gobolka Selel iyo gobolka Awdal. arrinta dawladda Jabuuti baa aad u cadaysatay oo waxay qarsanaysaa haba yaraatee jirin kol ay ciidamo ay soo abaabusho oo ay maryaha ka dhigto oo ay u dhixidho maryaha hidiya dhaqanka u ah beesha ciise maadaama ay sharcigii ciise ka sameeyay dhaqankaba si ay markaasi ay ugu duulaan Jamhuuriyadda Somaliland iyagoo iska dhigaya shacab degan Somaliland taasoo rabaan inay qalalaase ka abuuraan ictiraafka Somaliland dhibaato u geystaan oo ay halka hadalka abuuraan iyo qalalaase iyagoo deganeen deegaanka
gobolka Somaliland ee Salad dawladda Jabuutina iyadoo dacwad ka gudbisay Jamhuuriyadda Soomaaliland ictiraafkeega oo aan ogoleyn in dawladda Soomaaliland la ictiraafo oo dhibaato ay halkaasi aan koobnahay haddana qalalaas ay ka bilowday inay barakac ka samayso dawladda Jabuuti ay ciidamadeeda soo tababartay keento waa tahay daawada